wasiirka qorsheynta maalgashiga ee horumarinta dhaqaalaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo ayaa maanta waxay gaareen magaalada Garowe ee xarunta dowlad goboleedka Puntland waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland. ujeedka socdaalka wafdiga wasiirka qorsheynta xukuumadda federaalka Soomaaliya uu hogaaminayo ayaa ah sidii wada tashi ku aadan wareegga koobaad ee qorshaha horumarinta qaranka ee sagaalaad loola yeelan lahaa hay'adaha kala duwan ee dowlad goboleedka Puntland ururada bulshada rayidka ah ganacsatada iyo laanta sharci dejinta dowlad goboleedka Puntland. wasiir dowlaha wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedka Puntland Abdixakiin Caydiid oo warbaahinta kula hadlay qaybta nasashada garoonka diyaaradaha magaalada Garowe ayaa waxa uu sheegay in maalmaha ay joogaan wafdiga hogaaminayo wasiirka qorsheynta xukuumadda federaalka Soomaaliya wada tashiyo la yeelan doonaan bulshada qaybaha kala duwan ee ku nool deegaanada dowlad goboleedka Puntland. wasiirka qorsheynta xukuumadda federaalka Soomaaliya Jamaal Maxamed ayaa waxa uu sheegay in ujeedka ugu weyn ee socdaalka safarkiisa uu yahay sidii loo xoojin lahaa wada shaqeynta dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Puntland. maalmaha ay joogaanna kulamo kala duwan magaalada Garowe ay ku qaban doonaan waxaa lagu wadaa in maalinta berita magaalada Garowe laga daafuro wada tashiga qorsheynta horumarinta qaranka ee sagaalaad kaasi oo saldhig u ah geedi socodka cafinta Soomaaliya.